السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبات صاحب بيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku falanqeyn doono xaaladda bariga dhexe laga soo bilaabo 7 Oktoobar markii kooxda Xamaas ay weerar ku qaaday dhulka loo yaqaan Khilaaf Gaza ama dhulka xoogga Israa'iil ku haysato laga soo gaaro weerarkii xalay Iran ay ku qaaday caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv. barnaamijkeena waxaa marti inoogu ah falanqeeyo timacado ah falanqeeyo ka faallooda arrimaha bariga dhexe geeska Afrika iyo guud ahaan siyaasadda caalamka. Ustaad aan soo dhaweynayna marka hore waan ku faraxsanahay inaad nala joogto stuudiyaha RTN laga soo bilaabo 7 Oktoobar xaaladda bariga dhexe sidee ahayd duufaanta al-Aqsa 7 Oktoobar sikadiisa Israa'iil lagu qaaday waxay ahayd mucjiso weyn oo kontonka sano oo dagaalka u socday mid ka duwan ahayd laga soo bilaabo duulimaadkaas ilaa maanta oo xalay ahayd waxay ahayd hal habeen Israa'iil iyo Falastiin oo dagaalka ka socday laakiin xalay way ka duwaneed xalay waxay ahayd habeen muddo badan Israa'iil dadka hurdada ka toosi jirta laakiin xalay ay ka hurdada laga toosiyay dhammaan waxa marin habaabiyay nidaamka ugu casrisan ee gantaalaha ee loo yaqaan Iron Dome oo Mareykanku u taageerayay oo Ingiriisku taageerayay oo Germany u taageerayay dhammaantood godadka xalay dad qiyaastii dad ku dhow 20 milyan ayaa godadka ku jiray sidoo kale godadka waxa kula jiray golaha wasiirada ee dagaalka ee madaxweyne Netanyahu ayaa dadkii xalay sidoo kale saaxiibadiisa reer galbeedka oo Biden iyo Kamala Harrisna iyaguna Washington aqalka cad qolka loo yaqaan special room ayay kala socdeen waxa ka dhacaya bariga dhexe meelihii xalay la weeraray waxa kamid ahayd xarunta Mossad ee ku leedahay magaalada Tel Aviv waxa kamid ah ciidanka cirka xarun uu ku leeyahay Najaf la dhaho sidoo kale badda dhimatay ama al-Bahr al-Mayt ama DC iyadana gantaala ayaa ku dhacay iyo meelo kala duwan oo ku yaalay dhulka la haysto Iran markii aan u imaanay in badan ay booteynayso ay dhahaysay ragga muhiimka ama hogaamiyo kooxaha Iran ay taageerto waan u aragudeynaa muddo ka bacdi wuxuu la laayay aan ognahay garbihii muhiimka ah Xisbullah toddobaadkii hadda la soo dhaafay gamta laga saaray oo raggii siyaasadda ku taageeraya Xamaas oo kamid ah Ismaaciil Haniye gudaha Tehran lagu dilay dagaalkooda xilligan maxaa ku soo aadiyay soo ma ahayn jawaabtan mid ka horeysa inay sameeyaan runtii xilligan waxa ku soo aadiyay Iran culeysyo badan ay dareentay maxaa yeelay hogaamiyihii ugu dambeeyay oo Xasan Nasrallah oo u qaadinsanaa Lubnaan oo ilaa Yemen dagaalka hogaaminaya maadaama laga dilay waxay dareentay culeys in yaani beejada meesha ugu dambeeyay laga taabtay marka xalay telefishinka Iran sida wararka lagu baahinayay intaalada waa la sii ogaa dhulal badan ayuu sii mareen oo Urdun ay kamid tahay hawada Urdun oo la sii isticmaalay marka waxay ahayd wax kale uma furnayn inay jawaab bixiyaan maahane waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah hogaamiyaha ugu sareeya wadanka Iran in asagana meel ammaan ah oo warbaahinta laga qariyo la geeyay si reaction-ka ama feedback-ka filcilinta ka dhalan karta filcilinta ka dhig doon aysan saameyn ku yeelin marka waa jawaab la soo daahay laakiin waa jawaab waqtigeedii soo yaani la soo daahitaankaasi sumcadda Iran wax dhaawac uma geysan karo iyadoo aan ognahay gobolka inay saameyn ku leedahay oo ururada ay taageerto dhan ay dhinac walba Israa'iil ka joogan runtii waxa keenaya dib u dhaca Iran waxay ka mar kastaba waxa ay badbaadinaysaa hubka nuclear-ka maadaama bacrin ku jiro inay dagaal si oo ku talagal ah in ku gasho waqti dheer laakiin hadda Iran waa diyaar garowday waxay ka cabsanaysay meelaha bacriminta nuclear-ka in la qarxiyo taasina disaster ay ku noqoto marka xilligan Iran waxay yaani u jihaysatay wado ay dagaal ku galayso sidaad sheegtay hordhaca barnaamijka meelaha la weeraray xalay waxa kamid ah xarumaha Mossad oo aan ognahay in lagu tilmaamo mid kamid ah sirdoonada ugu halista badan ee ugu yaani ugu adag caalamka midaas iyada maxay ka dhigan tahay runtii waxay ka dhigan tahay guul weyn oo ay gaareen Tehran iyo saaxiibadooda bariga dhexe sidoo kale waxyaabaha cajiibka ay xalay la diiwaan geliyay waxa kamid ah taliyaha ciidanka Iran yaani Israa'iil inuu dhahay xaaladdu waa safe magaalada dhibaato kama jirto laakiin saacada kadib digniinihii alartigi oo yeeray safarat al-indar alartigi oo yeeray kadibna dadkii godadkii ay galeen marka waxay ahayd wax la sii ogaa marka si loo fiiriyo galbeedku sii ogaayeen in Iran weerar ila telefishinada wax live la baahinayay ahayd laakiin waxa uu qabtaa sirdoonka Israa'iil iyo meelihii ay adduunyada ka joogeen inay xoogaa gabaabsi galayaan oo yaani Israa'iiliyiintii shalay awood lahaa maanta waxa uu qabtaa in mukhaabaraadkoodii inuu soo wax nafal lahayn markii aanu imaano Lubnaan maxay Israa'iil ka wada horta runtii Lubnaan waxa waaye meel dhul oo hore Israa'iil mar badan xilliyadii dagaaladii dhexe ay qabsatay laakiin 2006 dagaalo badan ka dhaceen dib ugu laabatay waa meel mar kastaba Israa'iil ay aaminsaneed in looga soo duulo
gudaha Israa'iil waxaa degan Xisbullah oo aad ka shidaal qaata Iiraan iyo Ayatollah Ali Khamenei marka waxay aaminsan tahay sida Gaza ay u burburisay rabtay inay Lubnaan burburiso Lubnaan haday burburisana dadka Israa'iil dhulkan xoog la daagiyay waxay aaminsan yihiin inay nabad iyo barwaaqo gaarayaan laakiin dariskaagu haduu dib wado waxay aaminsan yihiin in Israa'iil marnaba dagaal kastoo la galay inay wax natiijo laga gaarin oo biri dhibaatada ay soo laabanayso marka dagaal waxay rabtaa inay qayb kamid ah front line inay gasho wayna gashay laakiin wali kuma sii adkaysan doonto inay dagaal toos maxaa yeelay Xisbullah 150 askari ayaa xaquuq sheegan 150 kaas askari markii la isku bawaacday awood caadiga ah waxa waaye waa awood baarlay laakiin waxa laga awood badan yahay difaac cirka toddobaadkii la soo dhaafay Xisbullah Xasan Nasrullah la dilay sidoo kale ciidanka lugta Israa'iil waxay ka gudbeenaa leeyahay xuduudka kala qaybiyo Lubnaan iyo Israa'iil ama dhulka xoog lagu haysto Israa'iil yana dhihin midaas iyada xaaladda bariga dhexe sidee ka dhigi kartaa aan ku raaciyo toddobaadkii la soo dhaafay Xasan Nasrullah markii la dilay waxa la dilay rag muhiim ah oo ka tirsan garbihi Xisbullah baa la laayay midaas maxay ka dhigantaa iyada ama dhaawac intee leeg bay Iiraan iyo saaxiibada gaarsiin kartaa ama xaaladda bariga dhexe ka dhigi kartaa waxay ka dhigi kartaa marka si la fiirisid Xisbullah iyo Iiraan wax u qabtaa sirdoonka Mossad iyo Zaid u galay intaan dagaalada dhicin waa ogeyd nidaamka sistemyada iyo kombiyuutaraaska ayaa 6 bilood ka hor shirkado inta ka soo gateen ay dhaxgaltay kumanaan qof wax boqolaal qof marka waxa uu qabtaa in gudaha Iiraan yani Israa'iiliyiintu iyo maqaayadihii oo halka dhalinyarada ay ka dhigi jireen ay ka dhex qadeynayaan walaga dhex qadeeyay sax marka laakiin si marka u fiirisay ay kuna wax isku dayayaan inay iska difaacaan laakiin waa jamhad iyo wadan adduunyada la dhil gareenayo furan wax badan sirdoona badan helayo waxyaabo cajiibka waxa kamid ah Israa'iil kaliya dal kaliya dagaalamay ma saaxiibo badan oo reer galbeed ayaa garab iyo gaashaan ku ah oo markastaba diyaaradoodu isticmaalayaan oo mararka qaar taa waxa Mareykanka shidaalka bixinaya diyaaradaha oo markuu garaacayaan Lubnaan kala xitaa xuquuqi tilmaamayaan yani bambaanooyinkii dhulka hoostooda jiray ee Xasan Nasrullah iyo saaxiibadiisa lagu dilay in Israa'iil aysan lahayn hub Mareykan u lahaayta xaqiiqo way Mareykanka Ingiriiska iyo wadamada bahwadaagta la inay gacan siinayaan maxaa la yiraahdaa waxa la dhahaa Israa'iil waa dhalaanka bariga dhexe Israa'iil waa dhuldibadeedka Mareykanka ee ku yaal dhuldibadeedka waa qayb kamid ah Mareykanka marka Mareykanka hadii maanta California la weeraro iyo Tel Aviv isku mid ay u tahay madaxweynuhuna markastaba waxa uu sheegay ciidan 40,000 ilaa 50,000 oo ciidamada Mareyniska Mareykanka ayaa bariga dhexe jooga oo saldhiyo Qatar kule oo Ciraaq kule wuxuu amray in loo gargaaro Israa'iil oo dagaalka la galo waraysi waxa ku sheegtay gantaalada Iiraan ay soo tuureen in ay si weyn u marhabaabiyeen ciidanka difaaca cirka ee Mareykanka midaas maxay ka dhigan tahay iyada runtii waxay ka dhigan tahay xalay shacabkii Israa'iil iyo ciidamadii wax difaaci lahaa ciidan yar oo Mareynis oo xeebaha jooga ma inta kale gudadka galeen marka shacabkii iyo militariga wax difaaci lahaa ayaa wax isku milmay taasina waxa qalqal geliyay waxa way alaartiga dhan oo wax controlay maxaa yeelay systemkan Iron Lodku waxa uu wax ku qabtaa muddo kooban laakiin wuxuu hadii wax badan yihiin controlka kalluumaysiga raadeerada mararka qaar dunida markii meel la duqeynayo waxa macquul ah raadeero diyaarado badan hadii hawada soo galaan inuu raadeerku qalqal dareemayo teknolojiyadu mararka qaar kuma shaqeynayso markii aan fiirino Xisbullah oo soo laabanay Lubnaan hogaamiyahoodii baa la dilay koox yar oo Xamaas la dhahana intaas oo sano ama oo yaraan bilood 10 bilood ay ka dagaalamaysa gudaha oo ragoodii muhiimka aan war laga haynin maxaa waa cilaaqad ka dhaxeeyo sirdoon xumida ama tabardarrada kooxaha Iiraan ay taageertay ee banaanka iyo Xamaas oo kale runtii farqiga u dhaxeeyo waxa waaye muddo dheer ay dadka Xamaasiyiinta ah ama jamhadda Xamaas Gaza degan la go'doomiyay marka waxay barteen qaabka loola noolaado cadawga laakiin wali waxa uu qabtay Xisbullah inaysan baran cadawgooda inay la noolaan karaan marka maadaama sirdoonku Mossad oo sirdoon aad u adag yahay waxa meel kasta sector kasta oo dawladnimada ay dhex galeen waana waxa sababaya in saacado gudaha hogaamiyaha weyn ah in la bartilmaamay sida wax sahlan ma xogaas waxay u baahan in la baaro halkay ka yimaadeen cidda keentay waxa fududay hogaamiyaasha in la dilo waxay ka dhigan tahay guul darro siyaasadeed meesha ugu dambeeyay in lagu weeqo marka muhiim ay ahayd in yani labadaas farqi ayaa u dhaxeeya nimankan Xisbullah ee Lubnaan jooga iyo Xamaas jooga Gaza dilka Xasan Nasrullah salahan caalamka carabta buuq buu ka abuuray in Xasan Nasrullah dadka qaar waxay qabaan oo carabta kamid ah waliba dadka Suuriya ka soo jeedo
mujrim ilaahay ummadda ka qabtay inay tahay oo malaayiin ruux wuxuu ku dilaa la dhahaa dhulka loo yaqaano Bashar al-Assad xoog uu ku haysta Suuriya galbeedkuna badanaa waxa uu saameyn ku leeyahay isla ururadaas ay taageerto kooxda loo yaqaano caasimad Tehran laga taageero galbeedku gacantee dhan uu isaga gudaha ku leeyahay ururadan ay isla Iiraan taageertaa runtii markii si u fiirisid markii laga hadlaayo bariga dhexe shiicada iyo sunniyiintu markastaba dad kala ra'yi duwan waaye loolana ka dhaxay mar walba muslim la wada yahay ayaa haddana madhabyo iyo kala duwan la kala qaataa xisbullah iyo Sheekh Xasan Nasrallah dadka qaarkood oo sunniga ah lama dhacsanin siyaasadeeda laakiin markaas si fiirisid cadaawada Israa'iil kala dhaxaysa qaarkood waa la taageeri jiray laakiin cadaawadaas madhabka ah saameyn waa ku yeelan karaa tan kala reer galbeedku markastaba danahooda meelaha ka arkaan ayay taageeraan oo ay u soo dhaxmaraan maanta way soo tubarraacayaan siyaasiyiin ama dad wariyaal waxay qabaan oo caalamka carabta ka tirsan in raggan Iiraan ay barbaarisay galbeedku uu gacan gudaha ku leeyahay markuu rabo Ciraaq ugu heli jiray waa kaas ay leeyihiin Faisal Qaasim oo kamid ah wariyaasha Al-Jazeera oo kaleeto oo aad uga faalooda siyaasadda barnaamijka Itijah al-Mucaakis caan ku noqday waxa uu leeyahay mar walba Ciraaq loogu wici jiray raggan markii dantooda laga dhameystayna wakaas sidii la ugaarsanayo sidii shimbir galayd gala waa wax macquul oo dhici kara maxaa yeelay shiicada joogta Syria iyo shiicada Ciraaq joogta mararka qaar Mareykanku wuxuu u adeegsadaa inuu ISIS dagaalkii ISIS aan xasuusano oo magaalada Mosul Ciraaq looga saarayay dadkii loo adeegsanayo waxay ahaayeen shiico marka markastaba danahooda meesha ka arkaan saameyn ku leeyihiin ma la dhihi karo islaam iyo sunni iyo shiico meesha danahooda ka arkaan ayay markastaba adeegsadaan waana sir oo runtii muhiim u tahay in iska kala ogaado adiga soo koobayo ugu dambeyn dagaalka ka socdo bariga dhexe wuu faafay dabcan asagoo 7 Oktoobar wiil yar oo weeraray dhulka khilaaful Gaza loo yaqaan adiga soo koobayo ugu dambeyn yani say u aragtaa dagaalkan xagee ku dambeyn doona runtii mustaqbalka gobolka bariga dhexe waa mustaqbal ay fiirinayaan dhammaan regionka maxaa yeelay bariga dhexe waa meel rabshadoodu iska badan yahay waa gobol aan deganayn waana gobol aan la saadaali karin dhinac kalena muhiim ah maxaa yeelay waa gobol ay kulmiyeen saddexda diin ugu waaweyn dunida waa islaamka kristanka iyo diintan Israa'iiliyiintu haystaan marka waa mustaqbalka lama go'aamin karo laakiin waxa laga baqay in dagaal saddexaad ka qarxi karo maxaa yeelay Iiraan waxay doonaysaa inay awoodeedii gobolka bariga dhexe sii hayso Israa'iiliyiintu waxay aaminsan yihiin Iiraan oo gobolka bariga dhexe ku taala inaysan marnaba Israa'iil ay nabad noqonaynin iyo dawlad Falastiin la yiraahdo oo aanan bariga dhexe ka jirin in ayaduna caqabad jirto oo in la xaliyo adduunyadu doonayo marka saansaanta waxay tahay inuu dagaal dhici doono laakiin dagaalkaasi dagaalkii saddexaad uu noqon doonaa waa su'aal mudan aan arki doono jawaabtii Iiraan xala filcintu maxay noqon kartaa isdhihi karnaa runtii Iiraan jawaabteedu waxay noqon doonaa Israa'iil in si degdeg uga jawaabto Israa'iil waxa lagu yaqaanaa dawlad awood leh oo gobolka bariga dhexe awood ku leh oo hub casri ah haysata marka waqti kasta ha qaadatee Israa'iil jawaabteedu waa su'aal okay waxaa jiro badanaa Israa'iil weerarada banaanka ka dhaco oo dadka muhiimka lagu ugaarsado ma sheegato laakiin kii Xasan Nasrullah kal hore sheegatay iyadoo xisbullah ay ku qaadatay muddo in ay sheegtaan ayada midaas midda kale markaan u tagno markaan New York tagno shirka qaramada midoobay golaha amniga qaramada midoobay markii uu hadalka qaatay ninkii loo yaqaan Netanyahu dunidu dadkii ugu badanaa way ka kala dareereen ma waxaa isdhihi karnaa yani halkaas dhankaas waxaa habacsanaan yani taageero siyaasadeed oo dawlado yarmooyin aan dunida dhan ahayn Israa'iil ka haysan kara runtii Israa'iil way ku fadeexowday markii si loo fiiriyo maxaa yeelay Israa'iil markastaba aragtida waxay ahayd Israa'iil laga dhaadhici jiray two state solution laba xal oo dawladda leeyahay Falastiin iyo dawladda leeyahay Israa'iil laakiin waxa uu qabtaa in adduunyadu halkaan hadda Israa'iil iyo reer galbeedku qaatay one state solution oo Israa'iil kaliya in bariga dhexe loo baneeyo taasina adduunka ka soo horjeeday waa ogeed marka golaha ammaanka يعني الشركة جود قرمي المدوب لما هو لو قدر بمعنى كم ربنا وهذا الدبلوماسي سن وماش قدام بيسا وحير أو تاجريال أو هري مركا رنتي وحي هاد فقارة عالمي أو مرة كذا على يعني نتنياهو بوليس وزير الدجال تاجرياش مدوب
هذه وما سنت أستاذ أذن كلمة ذلنا كلن كان كاسي waxa uu saatima cadde oo nala falanqeynaya xaaladda guud ahaan bariga dhexe weerarkii xalay ugu dambeeyay Iran ku qaadeen Israa'iil ama dawladda guumeystaha intaan barnaamijkan oo kale ta kulmi doona waxa idin kaga tagayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh